waxaa gebi ahaanba maanta baaqday wareeggii labaad ee wadahadallada madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha golaha mustaqbalka kaasoo maantoo jimcaha loo ballansanaa islamarkaana gebi ahaanba dib u dhacay. waxaan kula wadaagi doonaa sababta ka dambaysa in gebi ahaanba shirkii maanta ee golaha mustaqbalka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya uu baaqdo. 3 qodob oo muhiim ayaan kula wadaagi doonaa oo shirkaasi maanta baajisay iyo sidoo kale kulamada markaasi gaargaarka ah ee xubnaha golaha mustaqbalka iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay ku kala maqan yihiin oo ay markaasi doonayaan in maalinimada berri oo sabtiya ay la shartigaan kulanka markaasi wareegga labaad ee wadahadallada madaxda dowladda federaalk iyo xubnaha golaha mustaqbalka. soo dhowow daawad haddee tahay booqashadaadii ugu horreysay nagu soo biir oo ka mid noqo daawadayaasha ku xiran. haddii aad hore noola joogto inaad ku mahadsan tahay ka qayb qaada faafinta muuqaalkan oo like saar si muuqaalka meel dheer ugu gaaro. waa hagaaga kulanka maanta loo ballansanaa inuu ka qabsoomo filla soomaaliya ee u dhexeeyey madaxda soomaaliya iyo sidoo kale madaxda golaha mustaqbalka ayaa baaqday sida ay ogaatay shabakada kaalmoy media oo si dhow la socotay wadahadallada madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha golaha mustaqbalka. wadahadallada ayaa dib loo sii ambaqaadi doonaa maalinimada berri oo sabti ah iyada oo maanta markaasi kulamo gaargaar ah ay markaasi leeyihiin labada dhinac. wadahadallada magaalada muqdisho iyo sidoo kale kulamada gaargaarka ah ayaana mid kasta oo ka mid ah uu diiradda ku saaraya ajandaha uu la tegi doono wareegga labaad ee wadahadallada. kulamadan ayaa la sheegay in markaasi dhinac waliba uu gaarkiisa markaasi uga arrinsanayo qodobada muhiimka ah ee diiradda lagu saarayo wareegga labaad ee soo socda ee wadahadallada, sida markaasi dhinac waliba uu doonayana inuu markaasi ajando uu ku qanacsan yahay uu miiska la tago. waxaana golaha mustaqbalka ay diiradda saarayaan sida markaasi ogaatay kaalmoy media arrimaha doorashooyinka. xalay madaxda golaha mustaqbalka oo shir muhiim ah markaasi ku yeeshay gudaha xeyndaabka xalane ayaa isku raacay in shirka berri oo sabti ah markaasi loo ballansan yahay in filla soomaaliya uu ka qabsoomo in ay u diraan madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni, madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed, ra-iisul wasaare hore xasan cali kheyre iyo sidoo kale xildhibaanada kale ah xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo sidoo kale xildhibaan cabdulaahi carab oo iyagu markaasi xubnaha golaha mustaqbalka wadahadallada wareegga labaad ee berri ka furmaya filla soomaaliya wakiil uga noqon doono madaxweyne xasan sheekh maxamuudna la fariisan doono. xubnahan ayaa qorshahoodu yahay in ay si gaar ah markaasi ula xaajoodaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud, taasoo meesha ka saaraysa in xubno kale oo ka tirsana dowladda ay qayb ka noqdaan shirka berri oo sabtiya ka furmaya filla soomaaliya. shirka berri ayaa waxaa markaasi diiradda lagu saari doonaa arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale heer dowlad goboleed, gaar ahaan maamul goboleedyada koonfur galbeed, galmudug, hirshabelle oo iyagu markaasi ah kuwo mudurdhaaf ku fadhiya kuraasta madaxweyneyaashooda. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kulankii furitaanka ee maalinnimadii khamiista si cad ugu sheegay xubnaha golaha mustaqbalka in aysan wax shaqo ah ku lahayn nooc kasta oo doorasha oo ka dhacaysa dowlad goboleedyada saddexda ah ee la safan dowladda federaalk soomaaliya, haddii ay markaasi sii joogayaan madaxda iyo haddii doorasho la qabanayana aysan ahayn shaqo iyaga u taalla madaxda golaha mustaqbalka, keliyana shaqada u taalla ay tahay inay kala hadlaan arrimaha doorashooyinka heer federaal iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka, ammaanka iyo midnimada. mucaaradka ayaa markaasi doonaya in la qabto doorashooyin heshiis lagu yahay, halka markaasi dowladda federaalk soomaaliya ay doonayso qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ah midda hadda markaasi filla soomaaliya ay gadaal ka riixayso. waxaa la filayaa in berri markaasi lagu kala caddeeyo nooca doorasho ee la qaban doono, si gaar ah maamul goboleedyada iyagu muddodhaafka ku jooga nooca doorasho ee markaasi ka dhici karto oo golaha mustaqbalka ay miiska soo saari doonaan, walow xasan sheekh maxamuud uu isagu markaasi si cad u diidan yahay in golaha mustaqbalka wax door ah ay ku yeeshaan nooca doorasho ee ka dhacaysa dowlad goboleedyada saddexda ah, iyo sidoo kale haddii ay markaasi kuraastas ka sii joogayaan madaxda wakhtigan fadhisa ee muddo dhaafka. madaxda labada dhinac ayaa shalay markaasi isku afgartay sii wadista wadahadallada si markaasi xal looga gaaro kala aragti duwanaanshiyaha jira, kaas oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka oo ay dhinacyadu markaasi si weyn u kala aragti duwan yihiin. shirkan oo markaasi ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo dalka uu wajahayo abaara baahsan oo iyo sidoo kale xaalado markaasi bini'aadanimo ayaa waxaa si dhow dhinaca kale ula socda beesha caalamka oo cadaadis xooggan ku saaraysa dhinacyada in ay xalka madambays ah ka gaaraan ismariwaaga siyaasadeed ee muddada dheer soo jiitamayey ee dhinacyadan markaasi u dhexeeyey. madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxa ay doonayaan in ajandayaasha markaasi doorasho ee laga wada hadlaya ay noqdaan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda, walow marka la fiiriyo dhinaca golaha mustaqbalka ay si weyn markaasi u diidan yihiin in wakhtigan markaasi kala guurka dowladda federaalk soomaaliya looga aamuso in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah, islamarkaana loo baahan yahay in laga heshiiyo nooc kasta oo doorasha oo dalka ka dhacaysa. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa
ayaa marka la fiiriyo waxay ku adkaysanayaan dhammaan ajandayaashoodii ay horey markaasi u riixayeen oo kale ah doorasho qof iyo cod oo dalka ka dhacdo, wax ka beddelka dastuurka, arrimaha ammaanka, midnimada iyo sidoo kale sii joogista ama in markaasi kuraasta lagu ilaaliyo madaxda wakhtigan fadhiso maamulada galmudug, hirshabelle iyo sidoo kale koonfur galbeed. sida markaasi xogahay ku soo gaarayaan kalmooy miidiya kulankii furitaanka ee khamiistii, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xubnaha golaha mustaqbalka waxay u soo jeediyeen in la qabto doorashooyin loo dhan yahay islamarkaana si cadaalad ah uga dhacda maamulada saddexda ah, balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warkaasi si cad u sheegay in wax shaqaaha aysan ku lahayn golaha mustaqbalka ka hadalka doorashooyin ka dhaca dowlad goboleedyada saddexda ah ee isaga markaasi la safan. taa beddelkeedana waxa uu sheegay in la joogo wakhtigii laga wada hadli lahaa doorashooyinka heer federaal iyo nooca markaasi ay noqonayaan. golaha mustaqbalka ayaa hadda waxaa markaasi ay u muuqdaan kuwo kulankoodii maanta u baajiyey in ay yeeshaan kulamo gaargaara oo ay kaga arrinsanayaan ajandaha maalinimada sabtida ay la tagayaan shirka ka furmaya villa soomaaliya. wareegga labaad ee shirka madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale xubnaha golaha mustaqbalka ee ka qabsoomaya hoolka shirarka ee villa soomaaliya ayaa noqon doona kuwo markaasi ka adag kulankii hore ee maalinimadii khamiista ee furitaanka ahaa, kaas oo isagu markaasi ku bilowday jawi degan kuna soo dhammaaday jawi degan. baaqashada kulanka maanta oo jimco ahayd ayaase wax walba markaasi ka dhigaya mid adag marka la fiiriyo. dhinacyada ayaa sii kala fogaanaya iyada oo ajandayaasha ay kala wataanna ay yihiin kuwa xasaasi ah. golaha mustaqbalka waxa ay doonayaan waxa ugu horreeye laga wada hadlaya in ay noqdaan doorashooyinka, halka madaxda dowladda federaalk soomaaliyana ay doonayaan waxa laga wada hadlaya in ay noqdaan arrimaha wax ka beddelka dastuurka, ammaanka, midnimada, doorashadana ay noqoto in la taageero midda hadda ay wado dowladda federaalk soomaaliya ee ah doorasho qof iyo coda oo dalka ka qabsoonta. madaxweyneyaasha jubbaland iyo sidoo kale puntland waa kuwa markaasi iyaga sida weyn uga soo horjeeda wax kasta oo dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda qaranka ay wakhtigan gacanta ku hayaan, sida arrimaha doorashooyinka qof iyo codka ah, wax ka beddelka dastuurka iyo in kuraasta lagu sii hayo maamul goboleedyada wakhtigan muddodhaafka ku jooga. madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa lagu soo warramayaa in isagu uu markaasi u muuqdo mid si weyn uga caraysan go'aamada dowladda federaalk soomaaliya iyo cagajiidka markaasi ku aadan siday uga cagajiidayso in la gaaro heshiiska madambeysa. madaxweyne siciid cabdulaahi deni ayay suuragal tahay islamarkaana ay u badan tahay in gebi ahaanba uu shirka isaga baxa maalmaha soo aadan haddii dowladda federaalk soomaaliya ay noqoto mid ku adkaysata mowqifkeeda islamarkaana aan samaynin wax tanaasulah. madaxweyne sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa isaga markaasi shirkan ka furmaya villa soomaaliya wareeggiisa labaad waxa uu arkaa fursad dahabi ah islamarkaana aqoonsi rasmi ah siinaysa jiritaanka madaxweynenimadiisa ee maamulka jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ay horey markaasi u qaadacday. guud ahaan wixii ka soo kordha shirkan iyo sidoo kale xog kasta oo ku saabsan halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya ee markasta hela xogaha iyo sidoo kale warbixinada aynu halkan ku baahino. muuqaalka like saar, aragtidada qaybta faallada ah ee kommentiga ku dhiibo sida aad u aragto. suuragal ma tahay in wareegga labaad ama wejiga labaad ee wadahadallada ee ka furmaya villa soomaaliya maalinimada sabtida dhinacyadu ay ku gaaraan heshiis doorasho oo kama dambaysa, mise waxaa sii socon doona ismarin waaga dhinaca siyaasadda iyo sidoo kale doorashooyinka ee golaha mustaqbalka ee madaxda dowladda federaalk soomaaliya? qaybta faallada ku dhiiba aragtidaada. haddii aad horey noola joogto ood ku mahadsan tahay, haddii aad nala jooginna mar kale nagu soo biir oo ka mid noqo calaamadda subscribe-ka noo taabo